bandhigga caafimaadka 2019 waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyaradii iyo mas'uuliyiintii juhdiga geliyey waqtiga geliyey ka fikiray muhiimadda ay leedahay bandhigga noocan oo kale ah isla markaana laba si joogto ah u wada ujeeddadana ay tahay bahda caafimaadka oo dhan in la isu keeno si la tashto iyo mustaqbalka caafimaadka. waxaa kaloo iyadana sharaf ah in takhaatiirta isbitaalada iyo hay-adaha kala duwan ee caafimaadka ka howlgalana ee wasaaraddiina hormuud u tahay ee halkan ayagana joogaan si ay bulshada ugu soo bandhigaan howlaha muhiimka ah ay dalka ka hayaan. runtii caafimaadku waa aasaaska bulshada. bulsho walbana inta caafimaadkeedu ee jirkooda fiyow yahay ayay maskaxdoodana fiyowdahay. maskaxdooda fiyowna waxay keenaysaa horumar iyo barwaaqo. waxaa kaloo xusid mudan muddadii dowlad la-aanta burburkii dalka dhacay 90kii iyo 1dii wixii ka dambeeyey in takhaatiirta Soomaaliyeed ay ahaayeen dad si mutadawacnimo u shaqeeya, hay-adihii ama goobihii caafimaadkana ay ahaayeen goobo shaqeeya, iyadoo weliba dad kale oo iyagana isxilqaamay ay jaamacadihii dib u yagleeleen oo ay soo saareen takhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo maanta dalku aad ugu diirsaday, kuwaasoo weliba duruufo adag dagaallo socdo wax ku soo bartay kuna koray. maantana aan u jeedno bah caafimaad oo isugu jirta brofesoro, macallimiin, takhaatiir, kalkaaliyayaal iyo ardayda ay goobtanna ku sugan yihiin magaalada iyo dalka oo dhan gobol walbana sidaas oo kale ay uga hirgaleen. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo doorka hogaamineed wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaalkaba oo mar walbaba fahamsan ahmiyadda ay caafimaadku leedahay bulshada. bandhigga noocanna wuxuu keenayaa in laga doodo si adag weliba looga hadlo caqabadaha jira, fursadaha jira, si markaas xal loogu helo caqabadihii, fursadaha jirana looga faa'iidaysto. waxaa kaloo hubaalti ah Soomaalidu inay yihiin dad runtii fikir badan oo waxyaalaha aadka loogu ammaano waxaa ka mid ah adkaysiga iyo hal abuurka. labadaasoo laisku helayna waa waxa adduunka oo dhan ummad walba ay aad ugu baahan tahay. annaga marka waxaa rabaa adkaysiga iyo hal abuurka tirada badan naga buuxa, shaksi walbana oo shaksiga kale ka fiican yahay, in isu imaatinka iyo wadajirka iyo doodda iyo wadahadalku ay dhaliso sideen wax u wada qabsanaa, midnimo iyo wadajir iyo iskaashi sideen ku helnaa. taasna waxaan rajaynaynaa in labadan beri aad fursadda haysataan uga faa'iidaysan doontaan, uga doodi doontaan, wax dhaxalgal u noqdo mustaqbalka dambena aad u abuuri doontaan. markana aad iyo aadaan usoo dhawaynaynaa bandhiggan, waana ammaanaynaa dadkii ka soo shaqeeyey. waxaana leenahay ilaahay ajar haydinka siiyo. shacabka iyo ummadda kalena waxaan ku baaqaynaa in la garab galo, la garab istaago, isla markaana laga faa'iidaysto. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan halkan ka xuso ahamiyadda maamulka gobolka banaadir uu siinaya caafimaadka iyo sida aan u doonayno in goobaheena caafimaadka ay u noqdaan kuwo tayo leh, kuwo bulshada adeega u fidinayaan kuwo u qalma. taas daraaddeedna waxaan waaxdeena caafimaadku ay muddo ka shaqaynaysay sidii caafimaadka aasaasiga wax looga qaban lahaa. annagoo kaashanayna wasaaradda iyo dowladda federaalkana waxaan rajaynaynaa iyo shacabkaba inaan ka wada shaqayn doono arrintaas iyada. aad iyo aad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wadayna subscribe saartid, riix like, sidoo kale riix gambaleelka digniintaasi markaan muuqaal soo gelin aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada. sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergaraysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+ iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada.